aadan maxamed cali maxamuud oo al-shabaab iyo daacish ku dhex isticmaalayay magacyada jaabir iyo saciid ilaa 2010 ayuu ka mid ahaa ururada argagixisada ah oo uu kaga biiray miyiga beledweyne uu ku dhashay. maxamed cali maxamed faarax oo daacish ku isticmaalayay magaca Abu Hurayrana Kismaayo ayuu uga soo safray ku biirista kooxda daacish sanadii 2018 kadib daawashada janal ay daacish ka samaysatay Telegramka. waana halka uu ka bilaabay labahoobida kooxda ku dhuumaaleysata buuraha bari ee Puntland. aadan maxamed cali maxamuud waxa uu ahaa bilowgiisa kuwa ay ugu yeeraan xisbada ee dhex wareegi jiray magaalooyinka beledweyne Buulaburta, Xaradheere iyo Buulafuulay, waxaana mar dambe laga dhigay madaxa cunnada ee jabhadda degan duurka Daynuunay. mar kale ayaa tababar hor leh lagu siiyo dooda leh, waxaana loo diyaariyay dagaalada joogto culus. fasax ka dheeraad ah maalmihii loogu talagalay kadib, al-shabaab waxa uu u xirnaa 6 bil iyo dhowr iyo 10 cisho, waxa uuna ka carooday xabsigaasi. kadib waxa uu u safray Boosaaso oo uu ka xoogsada ka xamaashay dhismaha, laakiin kooxda daacish oo bari kaga awood badan al-shabaab loolana uu ka dhaxeeya ayaa heshiis cusub u soo bandhigtay aadan. $200 Mareykanka ayay daacish bil ahaan u siin jirtay aadan. ceelka biyo kulul ayaa lagu baray dilka gaadmada ah, waxuuna ku dhex dilay Boosaasadii soo dhaweysay 2 muwaadin oo kale ah madaxii gaadiidka madaxtooyada Puntland, 2 xidigle Axmed Hurfa Jaamac 24 September 2018. 15 Oktoobar 2018 waxa uu isla Boosaaso ku dilay ganacsade cabitaan la ah Cabdiraxmaan Aadan Cali. kadib waxaa loo soo wareejiyay Muqdisho. boosteejada ceelasha biyaha ee Bakaaro iyo Suubacaad ayuu dilal ka geystay. 2019 January 19 ayuu howlwadaag Bakaaraha boosteejada ceelasha biyaha ay ku dileen isaga iyo 2 kale gudoomiye laameed Axmed Maxamed Nuur Axmed Sheeqaal iyo Cabdullaahi Maxamed Cali Cabdullaahi Dheere. 27 January 8 cisho kadib 2019 waxa uu ku dhaawacmay aadan xabado uu midba mar la dhacayeen marxuum Axmed Cabdi Xuseen oo militariga ka tirsanaa. markaas ayuuna soo galay gacmaha sharciga. Agoosto 2019 ayaa lagu xukumay dil toogasho ah aadan maxamed cali, waxaana xilligaasi ay maxkamadda sii deysay Cabdishakuur Xaaji Barsanj oo dhaawaca aadan qaaday laakiin ay maxkamadda wax dambi ah ku weysay. maxamed cali maxamed Abu Hurayra kadib safarkiisii Kismaayo Muqdisho ayuu yimid, waxa uuna u sii maray magaalada Garowe isagoo isticmaalaya diyaaradaha rayidka ee isaga kala goosha Garowe Muqdisho. caleelo ayuu tababar kula qaatay koox kale oo ay ku jiraan Etoobiyaan. Cabduqaadir Muumin waayeelka ka gadooday al-shabaab oo saami qaybsi beeleed ka heli waayay ayaa tababarka u soo xiray, waxa uuna ku galay 2 dagaal miiraale intii uu joogo buuraha Calmado. dagaaladaasi ayaa dhex maray labada koox ee suurad xumayso diinteena suuban. Muqdisho ayaa loo soo wareejiyay Maxamed oo qalfoof ahaan u samaysan qurba joog aan abid Soomaaliya arkin, waxaana tan ay sababtay in gudaha Bakaaraha lagu siiyay tababar toogasho live ah. howlgalkiisii xiga ayuu ka sameeyay suuqa Siinay, waxaana nolosha uu aqoonsaday kaabo markhaatiga suuqa Maxamed Cabdi Dhuxulow Agoosto 5 2019, waxaana xilligaasi dhaawacay ciidamada amniga oo ku soo simay gacmaha sharciga. maxkamadda ciidamada ayaa ku xukuntay Maaj 12 2020 dil toogasho. 3 sano oo aadan ah iyo 2 sano oo Maxamed ah kadib maanta ayaa lagu oofiyay xadkii qisaasta ahaa oo ay maxkamadda ciidamada ku xukuntay, sida warbaahinta uu sheegay General Cabdullaahi Buule Kami, xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. 4 marxuum X Dable Xooga Cabdi Axmed Xuseen, taariikhdu markay ahayd 27 bishii 1 2019 degmada Yaaqshid, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan. taariikhdu markay ahayd 1 bishii 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 26 bisha 10 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. sidoo kale maxamed cali maxamed faarax Abu Hurayra 24 jir ah uu dil bareer ah u geystay marxuum X kormeere 3 dawladda hoose Maxamed Cabdi Dhuxulow Dawiil, taariikhdu markay 5 bishii 2019 falkaas oo ka dhacay suuqa Siinay ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan. taariikhdu markay 12 bishii 3 2020 maanta oo taariikhdu tahay 26 bishii 10 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. wabillaahi tawfiiq. toogashada ka dhacday fagaaraha tiirka cadaaladda ee Iskool Buluusiya waxaa joogay madaxda maxkamadda ciidamada, xeer ilaalinta iyo saraakiil kale,
waxaa fulinta hawshan ku cibaadaystay haliyey ka tirsan diljirayaasheenna. cabduqaadir ciise, warbaahinta qaranka, Muqdisho.